aragtidan waxay ku dhacday haduudan bilaxaaw iyo mandhera dadweynaadka meesha lalahayo oo ciidanku daadsan nimankan lacagtii ay rabeen soomaaliya inay macnaha ku qodeeyaan ama xaaladeeda macnaha ku humeeyaan ay rabeen oo doorashadan lacagtii loo soo waday baa gacanta lagu dhigay. waa gartay lacagtana waxaa waday 2 qof, labadii qofna gacantaan ku haynaa. waxaan kulley haddii ilaaha yidhaahdo aan la beegsan doonaa maxkamadda ama sharciga islaamka sidii uu yahay inaan waafajinaan rabnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. waka xaaladaasaa jirta haduudana aadi waayo jawigeeda kala hadda waa deginahay ciidamihii oo hooga dalka dhan way joogaan, wixii gadaal la keenay wixii horeba bulshadana waa shaqadeedii iyo barnaamijyadeedii kale ay isku wadataa oo magaalo iska degan waayo oo shidan waayo maaha magaalo borogaraam iyo qaha iyo had iyo ku jira iyo baanti oo baanaga beryahan ugu soo shishida iyo waxba kama jiraan oo magaalo iska degan waayo. waa gartay marka nimankaas aad sheegaysid oo ilaa iyo 2 inay gaarayaan gormeed qabateen? nimankan shalay ayaa la qabtay 10 saacadoodkii xalay aan rabnay inaan barnaamijyada aan la wadaagno ii sheeg nimankan warfaafadeedka ma noqonin adiga saaka minaha aan rabnay inaan la wadaagno haddii ilaahay raali ka noqdo oo sirkasta ama biyo aan ka doonata haddii ilaahay yidhaahdo. lacagta imaaraadka waa lacag fara badan oo heladeer aan hufkeena haynay aan shaqada anada ay tahay maanaha xaaladaha lagu baaro ama lagu qaban karo ama lagu ogaan karo qofteeda iyo tabakedeeda aan haynaa oo nala soo baray waaba shaqada anada waxaas amal. raggani sida sheegtay gudaha Kenya ka imaadeen xadbeenaadka ayaana lagu qabtay marka intaysan Kenya ka soo bixin miyaa xogtooda hesheen? lacagtaas xogteeda aan helnay ayadoo Nairobi ka soo bixin oo aan ka soo bixi rabto mar mandhera lacagtaan u kuumaha mar hor waa la keenay haduudtaa la keenay garoonka airportka mandhera la keenay markii la keenay lacagtii nin kale oo Soomaaliyeed oo loo soo sheegay xagga joogo oo inuu ka mid yahay aan hadda u malaynayo aan xaqiiqna aan u haynin oo tafiir Soomaali inuu yahay aan u malaynayo aan ka helay war uu soo gudbiyey markuu noo soo sheegay hogteedana iska markaa haddana waa la celiyey ninkii lagu qabtay kuwa aqoonta qabtay waa celiyeen haddana hadda soo fakatay mid hore oo meel ay ka baxday baan garan weyno oo birtaa lagu qabtay way jirtaa kulley waad aragtaan muuqaalkeeda iyo quraanteeda. waxaa ii sheegtaa waxaan aad qabateen oo nimanka ay wadeen ma lacagtii rasmiga aheeda mise waa waxyaabaha lacagta lagu dhaqo? waa lacagta rasmiga aheed waa. meeqa ay gaaraysaa marka lacagta? lacagta lacag badan waaye lacag dhagal waaye lacag yar maaha lacag ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo ama gacan lagu geysan rabaa. marka waa gartay marka xaqiiqdeedii oo lacagta xisaabteeda aan mar dambaan jiraan ka soo sheegi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. waa qabanay nimanka gacanta lagu hayaa ayaga oo muuqaal iyo maqalab waaye. waa metalaya marka lacagta maxay ku sideen marka ma boorsooyin ay ku sideen maxay ku sideen lacagta? lacagta way kala tahay alaabooyin oo noocyo badan ay u kala qaadeen ay jirto horumarkeedooyin amilah soo saarayeen oo meel walba hogteeda aan la soconay daraasaha waa laga bedelay naaga juwaan lagu fidayay oo la dhahay waxaan malaha igu qaad hogteeda la soconay lacag nooca lagu qaaday. waxaa ii sheegtaa marka lacagtaas cadadeeda ma la ogsoon yahay inta ay gaarayso? lacagtaas cadadeeda inaan xisaabnaa rabnaa meesha waa meel baarka nimanka markaan qabnay bulsha isku noqotay kabacdii afaaraheedu waa xirnay nimankaan sidii ku qabnay oo haddii iyo kabacdiin rabnaa maamul iyo odayaal iyo waxgarad inaan sugu imaan aan maanaha hogteedii iyo waxeedaba barnaamijyada inaan galnaa rabnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. ugu dambeyn marka ma ogaateen shakhsiyaadkaasi lacagta halka ay u wadeen maadaama gudaha dalka ay soo galeen lacagta dad ay u wadeen dadkaasi ma ku raadiseen oo ma ogaateen? kama arintaas laakiin jawaabteeda dib ayaan ka soo bixin doonaa baaritaankeedana waa wadnaa waan heli doonaa insha Allah.